Asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran channelkani soo dhawaada. Waxaa idin soo gudbinaya muuqaalkani waa anigoo Muuse. Waxaynu kaga hadli doonaa arrimo fara badan oo ka jira musalsalkani walaalaha ahana runtii xaalado hadda ka taagan xalaqaadka soo socdan dhici doona. Waxaa ugu horeeya ninka lagu magacaabo Sarbi iyo weliba sidoo kale ninka Cumar lagu magacaabo xaaladda u dhaxaysa sidoo kale ninka Caakif lagu magacaabo xaaladiisu waa sidee. Dhanka kale gabadheeda ee meelahayd halkii ku dambeysay si xaaladeedu waa sidee. muuqaalkani ayaan kugu soo gudbin doonaa fadlan daawade haddii ay tahay markii ugu horeysay ayaa soo boqoto channelkani walaalaha family fadlan subscribe channelka sidoo kale muuqaalkani like saarayad maasantay taga baadi aynu bilaabano muuqaalkeena maanta sidaynu wada ognahay ninkani Sarbi lagu magacaabo waxa uu soo maray uu sameeyay fal aad iyo aad wuxuun oo ku sameeyay ninkani Cumar lagu magacaabo waxaana la sheegay xalaqaadka soo socda inuu gali doono xabsi walow arrinkaasi ay cadeyn haddaba haddii aan idin xasuusiyo arrinka uu ku galay xabsiga iyo weliba falalka uu geystay ninkan lagu magacaabo Sarbi ayaa waxay kala yihiin sidaynu wada ogeyn xalqadiina soo dhaaftay 26aad waxa dhacday ninkan Sarbi lagu magacaabo inuu u yimaado ninkani Cumar oo uuna garaaco ninkani Cumar lagu magacaabo oo ka argudanaya hadda ka hor sawirkii uu ka qaaday ninkii Oljaan lagu magacaabi jiray markii ay joogeen iskoolka isagoo weliba khashinka ku dhex tuuri doona ninkan lagu magacaabo Cumar isagoo sawirna isaga qaadi doona isagoo ninkani Cumari aad iyo aad u liita balse marka uu sidaas uga yimaado oo isaga soo tago waxaynu arkaynaa ninkani lagu magacaabo Sarbi inuu jiirsiin doono gabadh yar gabadhaasi oo ah email gaarigiisan uu hadda watay kadib gaariga ayuu ka soo degi doonaa waxaana uu isku dayi doonaa inuu gabadha yar email inuu caawiyo balse nimankan la socday ayaa waxay isku dayayaan in ay ka yiraahdaan oo ay dhahaan isaga tag haddii aad u dhawaato gacmahaaga ayaa laga baari doonaa sidaas ayaana adiga lagu saari doonaa isaguna sidaas ayaa uu kaga tagi doonaa kadib Cumar ayaa soo kici doonaa waxaana uu dhihi doonaa oo uu soo dhaqaaqi doonaa dhankii ay amaal ku maqnayd waaba iyadii oo la tiray ayaa uu dul iman doonaa haddaba arrinkaasi aadka u foosho xun ayaa uu ku sameeyay ninkani Cumar muxuu samayn doonaa ayay kula tahay walow aynu ka arkaynay in gooska dhexdeeda markii uu email dhakhtarka la geynayay uu la hadlayay askariga uu ka lahaa waxaan rabaa inaan baadi goobo ninkaasi walaashay sidaan u galay waxaana ballan ku qaadaya inaan ka hadhi doonin haddaba marka uu ogaado ninkani Sarbi lagu magacaabo inuu ka dambeeyo arrinkani muxuu ka samayn doonaa ayaa ay kula tahay kulley u malayn maayo inuu caafinayo balse waxay kula tahay dhanka commentiga ayaad nagula wadaagi kartaa adiga ayaan kula hadlayaa adiga waa tahay arrinka labaad ee aynu ugu talagalnay muuqaalkani ayaa isagna waxa uu yahay arrinka ninka lagu magacaabo Caakif Atakul waana nin in fara badan ku soo jiray Kardashian oo musalsalkani bilow ilaa hadda xaaladda ku sugan yahay kula soo jiray oo la soo qaatay waayihiisa waxaanan aynu ku arkaynay ninkani Caakif lagu magacaabo qoskii u dambeeyay in uu ku dhex gubanayo gaarigaas oo iska lahaa islaanta Shanguul lagu magacaabo haddaba isagna xaaladiisa maxaa sidaani ka dhigay waxaynu ogeyn isagoo Suusan la nool xalqadii u dambeysay sida aynu ku soo xusnay muuqaalkii ku horeeyay oo uu idinla wadaagay walaalkeen Khalid inay soo burisay gabadhaani lagu magacaabo Suusan arrinta ku saabsan in uu ogaaday inuu Cumar yahay wiilkeeda ama wiilka uu dhalay ninkan lagu magacaabo Axmed Yilmaz iyadna ay arrinkaasi dabcan ka xumaatay oo ay ka xanaaqday kana soo erisay gurigani kadib uu Shanguul uu imaaday una weydiistay caawimadaasi oo ay kaga dhigtay mid soo dhaweysa kadib islaantii Gunuul lagu magacaabayo oo hinaasan ay ka gubto gaarigii uu ninkan lagu magacaabo Caakif u dhexurtay haddaba maxay kula tahay yaa badbaadin doonaan walow ay dadka qaari qabaan in ay badbaadin doonaan laba shakhsi labadaasi oo kala Dooruug iyo weliba sidoo kale odayga lagu magacaabo Orhaan walow arrinkaasi la hubin balse dadka qaar ayaa waxay qabaan arrinkaasi in ay badbaadin doonaan ninkan lagu magacaabo Dooruug iyo weliba sidoo kale odaygani Orhaana balse waynu arkaynaa cidda badbaadisa ninkani Caakif iyo inuu sidaasi khatarta uu ku galo oo uu halis ku galo oo musalsalkana ku dhawaado in laga basaaro mana suurtagal inay dhacdo arrinkaasi oo ay daartiradani musalsalkaba dabcan ka saarto ninkan lagu magacaabo Caakif balse uma eka inay ka saarayso waa tahay xaaladii wata saddexaad aan idhaahdee ee aynu idinku talagalnay ayaa waxay tahay arrinka dabcan gabadha lagu magacaabo Nabhad iyo weliba sidoo kale odaygani
Axmed Yilmaz lagu magacaabo xaaladoodu sii ahaan doontaa sida ay hadda tahay. Walow aynu arkayna islaanta Neefal lagu magacaabo in ay caawinaad weydiisatay gabadhaani lagu magacaabo Susan oo ay ka dhaxday inta uu imatay halqadii u dambeysay aynu ku arkaynay in ay ka dhaxday Susan ninkani waxa uu leeyahay xaas ana waaban isku wadwaday bal kaalay oo ila taliyadna ay ka odhanaysay ninkani Axmed Yilmaz lagu magacaabo oo run ahaantii haddana kula taliyo waa nin aad u xun. waxaan kugula talin lahaana inaad iska dayso ay ka dhahaysay gabadhan lagu magacaabo Susan ahi. haddaba arrinkoodaasi ma sidaas ayaa ku soo gabagaboobi doonaa. hata waxaynu arkaynaa inay xaalad ka dhaxayso ganacsi oo ay wada furteen meel ay labadooduba ka wada shaqaystaan. bal waynu aragnaa iyagna xaaladoodu dhanka ay ku dambayso insha Allah. haddaba xaaladda afraad ee aynu kusoo xidhayno ee ugu talagalnay muuqaalkan ayaa waxay tahay iyadna arrinka ninkan lagu magacaabo Cumar iyo weliba sidoo kale gabadhaani Suusay oo u ekeyd maalmihii u dambeysay ama xalaqaadkii ugu dambeysayba mid sii xumaanaya oo dabcan kasii dhacaya meel xun. walow lagu soo daray gabadh cusub haddana arrinkoodu weli waa sidii uun halqadii dhaweyd inta ay heshiiyeen ayaa ay haddana heshiiskoodu noqon mid sii waara oo waxa aynu moodaynayba in ay sidaas isugu soo laabteen, balse waa ay noqon waayeen sida ay noqdeen lamaanaha Aasiya iyo weliba sidoo kale Dooruug oo maalmahanba labadaasi lamaanay iskuma ay dhicin. dabcan waxa ay ka damacsan tahayna u malayn mayno oo garan mayno directoradu waxa isku dhacaya waa labadaasi dabcan lamaanayaal waa ay beer iyo weliba sidoo kale Suus oo labadaasi lamaane baa isku dhacaya, balse waynu ogaan doonaa bal xaaladoodu dhinacay ku dambeyso. arjeenana in ay isku soo laabtaan lamaanayaashaasi insha Allah. waxa aynu sugnaaba waa xalqada soo socota iyo weliba sidoo kale dhacdooyinka la yaab kale ee ka dhici doona xalqadaasi. walow qayb ka mid ah aynu sii haysano, balse qaybta kale waxaynu sugaynaa goosgooska labaadii marka uu soo baxo. qaybta labaad ee ugu cadcadna insha Allah waxaynu kasoo diyaarin doonaa marka uu soo baxo muuqaal. waxaana rajaynaynaa in uu sameeyo kor u kac dabcan ka ballaarankii uu sameeyey toddobaadkii dhaweyd oo uu ka sii xiisa badnaado sidaani uu hadda yahay musalsalku oo ay ka sii xiisayaan daawadayaasha musalsalkani ayna ka caajisin marnaba sida ay u daawanayaan ilaa iyo hadda ay u daawadaan. idinkuna waad ku maasantihiin sida quruxda badan leh ee aad noogu sheergaraynaysiin maasiijadiina quruxda badan leh waynu aragnaa. kale waad ku maasantihiin daawashada iyo waqtiga quruxda badan leh ee aad nala qaadanaysiin. waana nii mahad celeynaa. intaas ayaanan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkani. aad iyo aad baad u maasantihiin. waan salaamayaa. bye bye.